Ilyas Cabdullaahi Maxamed waa 13 sano jir agoon ah oo 8 sano ka mid ah noloshiisa uu la jiifo cudur ka haleelay dhanka maskaxda kaas oo sababay in dhaqdhaqaaqii ay joojiyaan dhammaan xubnaha kale ee jirkiisa. Waxa uu gabay hadalkii iska badaa in quudka la siiyo uu mariyo afka. Cunnada la siiyo ayaa loo mariyaa tubo kaga talaalan sanka oo toddobaadkiiba mar la bedelo kuna baxda qiimo dhan $20 oo ay adag tahay sida ay qoyska ku bixiyaan lacagta. waa nin agoon hooyadiina ma shaqaydo walaalka weyn oo shaqeeyo mushaar qaataana ma jiro intaasna ilaahay qadartiisa ayaan ku noolayn kuna soo gaarnay ilaa xilligan heerka aan joogno waa awoodda Allah iyo bulshada Soomaaliyeed ninkan hadda mashaakilka ugu weyn wuxuu yahay afka waxba kama qaadan karo soonda ayaa suran soondadaas ayaa lagu quudiyaa aniga ma shaqeeyo cid kalena nama saacidayso ilaa Allah subxaanahu wa ta'ala maahay usbuuc kasta waa la bedelaa soondadan waxaa lagu bedelaa lacag gaaraysa $20 waxa ay ku nool yihiin hoy ku yaala degmada Xamrweyne ee gobolka Banaadir gaar ahaan nawaaxiga iskuulka Raaga Ugaas ee magaalada Muqdisho. hooyo Faadumo Maxamuud Cali oo ah hooyada dhashay dhibana Ilyas Cabdullaahi Maxamuud oo ah qoys danyar ah oo aan waxba haysan waxa ay ka sheekeynaysaa xilliga uu ku bilowday cudurkan iyo sida ay nolosha qoyska tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Faadumo Maxamuud Cali oo hooyada dhashay wiilka xanuunsan ee hadda hortiina yaala wiilkaasna magaciisa waxa la yiraahdaa Ilyas Cabdullaahi Maxamed waa 13 jir xanuunkuna wuxuu ku bilowday 2011 bishii 12aad 8deedii ilaa iyo intaasna wuu xanuunsanaa xanuunkiisu marba heer ayuu ahaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay sheegeen in waxba laga qaban karin xanuunkuna uu yahay qaybta maskaxda dalka dibadiisana awood aan ku geyno waan waayay waayo waa agoon shaqana ma aanan hayn aniga cidna saacidaysan ma aanan helin. hooyo Faadumo ayaa ii sheegtay in dhowr isbitaal la geeyay dhibana Ilyas balse dhaqaatiirta ay ku wargeliyeen in dalka aan waxba looga qaban karin xaaladiisa caafimaad. cod dheer ayay ummadda Soomaaliyeed ganacsatada iyo madaxda dalka uga dalbatay in ay ku caawiyaan sidii uu caafimaad u heli lahaa wiilkeeda. dhaqaatiirta Soomaaliya waxay sheegeen in aan dalka dibadiisa ma gudaha waxba looga qaban karin warqadiisa caafimaadka dhameystiran way yaaliin inta kadib ilaahay abiya Allah subhanahu wa ta'ala keenay awoodana Allah leh man aaminsana ilaahay awoodiisana oo ku kalsoona laakiin mararka qaarkood dhaqaale la'aantu waa cudur isaga qudhiis qofka cuqdad ku noqda umad islaamka Allah subhanahu wa ta'ala bariyana horta Allah samaad iskale isaga mudnaanta iskale isaga awoodana iskale qurux ayuu banaanka ku keenay quruxdana maanta isaga siiyay cidna ma bedeli karto inta kadib umada islaamka wasan hore u sheegay dhalinyarada warbaahinta wax garadka duqowda culimo oo diinka dawladda intii muslimna la ilaaha illa Allah tira waxaan ka codsanaynaa inay saacidayaan wax inta aska dheeriya ma in aniga guriga agoona joogta ilmo waa agoon ku yaryar oo kala agoon way joogaan oo gabar u dhashay oo aabahood la dilay mana shaqaysan karo waayo qofkaanan haya marka umada islaamka waxaan ka rabnaa kaliya inay saacidaan waa iyaga caafimaadka ma keeni karaan laakiin haday isku duumaan umada muslimka way saacideen karaan muslimna waxa lagu yeelay si saacideeyo. waa muhiim in qof walba oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaato caawinta qoyska. waa tan hooyo Faadumo Maxamuud Cali oo sheegaysa lambarada lagala soo xiriirayo. walaalaha muslimiinta marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo saacideynaysa ama canugaas agoonka inay wax siido ay ka go'an tahay oo wax sadaqaysanaysa
in ay noogu soo diraan wixii ayna siinayaan lambar eber 6 hal 5 far 42 52 58 waa eber 6 hal 5 42 52 58 lambarka labaad fo eber 6 hal 2 33 45 39 labadaas lambar ayuu leeyahay agoonku insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan in ilaahay xaqa waafajiyo ummadda muslimiinta oo bugtan ay u gargaaraan barakallahu fiik Abdulqaadir Maxamed Cabdullaahi warbaahinta Star Muqdisho.